xalay ilaa iyo hadda waxaa baraha bulshada ruuxay muuqaal loo arkaya fadeexad oo ay faafinayaan shakhsiyaad kala duwan waxaana uu ka turjumayay qadarkeeyo oo shiday aroos Muqdisho ka dhacay kadib markii gabdhihii joogay hoolka arooska ay buuq iyo sawaxan hoolka arooska uga saareen Dayaxdal Nuurshe oo ay weelisay xaaskiisa Farxiyo. muuqaalkan waxaad ku ogaan doontaa falanqeyn aan ku sameyn doono wixii ka dhacay hoolka arooska ee Dayaxdal Nuurshe uu fadeexada kala kulmay halka qadarkeeyona ubaxyo lagu soo dhaweeyay. aragtideeda ku aadan sababta ka dambeysay in Dayaxdal Nuurshe iyo xaaskiisa la xushmeynin isla markiina qadarkeeyo uu hoteelka soo galo ma dagaalka labada fanaan ay tan marka la daafuri doontaa si aad u ogaato sheekadan iyo sida ay u dhacday aragtidaadana aad uga dhiibato nala daawo muuqaalkan kooban. inta aan guda galin like sar muuqaalkan si aad ula socoto muuqaal xiiso badan oo badi dad ka qarsoon una sheer gari asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga. labada saaxiib ee fanaaniinta ah ee Muqdisho ku wada nool heesahoodana laga dhageysto guud ahaan Soomaaliya iyo dhammaan meelaha kale oo ay Soomaalidu degaan ee kala Dayaxdal Nuurshe qadarkeeyo ayaa xalay waxa ay ka wada qayb qaateen aroos ka dhacay Muqdisho inkastoo aan xisaabta laga saari karin marka dib loogu laabto labadan shakhsi in waqti dhow mar kale ay dib midoobeen kadib khilaaf u dhaxeeyay sanado badan oo dhawaan la soo afjaray. waxay inta badan maalmihii la soo dhaafay labadan fanaan baraha bulshada soo dhigayeen sawirro iyagoo aad wada faraxsan isla markaana muujinaya saaxiibtinimo aan caadi ahayn laakiin muuqaalkan soo socda waxa uu daahfuray in mar kale dib loo iclaamiyo khilaaf u dhaxeeyay labada fanaan. waxaana su'aal badan la iska weydiiyay sida qadarkeeyo uu uga faa'iideystay fadeexada Dayaxdal Nuurshe kadib markii hadallo aan xushmad lahayn hoolka xafladda arooska ee ka socota looga saaray Dayaxdal Nuurshe. inta aan sharaxin muuqaalkan iyo waxyaabaha laga dhex fahmi karo bal mar qura aynu wada daawano. haddii aad si xeel dheer u dhageysato mid ka mid ah gabdhaha hoolka jooga ee aad moodayso in iyadaba ay muuqaalka duubayso waxa ay leedahay Dayaxdal Nuurshe balaayo ayuu iska dhigay taasi oo muujinaysa marxaladda buuqa inay la xiriirto lacagta uu fanaanku ku hayso marka la joogo hoolka. marka la joogo aroosyada qiyaas ahaan micnuhu waa in Dayaxdal Nuurshe uu qarashaad ahaan marka la eego aroosyada laga hayso uu kaga qarash badan yahay qadarkeeyo taasina ay keenayso in gabadha aad moodo inay muuqaalkaba duubayso ay dhahdo Dayaxdal Nuurshe balaayo ayuu iska dhigay. bal mar kale muuqaalka aynu wada daawano adigoo maqli kara gabadha codkeeda. taasi waxay cadeynaysaa in Dayaxdal Nuurshe uu qarash badan dalbaday ama xitaa uu ka cudur daartay inuu waqti dheer sii joogi karin hoolka maadaama laga yaabo in hoteelo kale uu ka ballansan yahay si uu heesa aroos uga soo qaado. taasina ay keentay inay caroodaan dhammaan gabdhihii hoolka joogay oo xiiso badan u qabay heesaha macaan ee aroosyada uu ka qaado Dayaxdal Nuurshe. sida xaqiiqada ahna mid ka mid ah gabdhihii hoolka joogay ayaa duubtay muuqaalkan si kama yar kadib baraha bulshada ayuu si weyn u qabsaday.
yeelkeedii aniga ahaan uma malaynayo inay jiraan wax ka baxsan labadan sabab oo keenay sawaxankii hadallada xushmadarrada ah oo ay la kulmeen Dayaxdal Nuurshe iyo xaaskiisa Farxiya. walow dadka qaar ay ku kaftamayeen in gabdhaha ay ka xumaadeen in Dayaxdal Nuurshe ay la socoto boqoradiisa Farxiya oo ah xaaskiisa, oo ay sidoo kale rabeen inuu kali ahaado si sawiro loola galo. si la mid ah dadka qaar ayaa siyaabo kala duwan u fasiray in qadarkeeyu uusan isku mashquulin arrinta xun ee loo geystay saaxiibkiisa Dayaxdal Nuurshe ee ka dhalatay hoolka uu isaguba heesta ka qaaday, balse sawaxan qaylo badan kadib oo Dayaxdal Nuurshe uu hoolka ka baxay si kama yar kadib ayuu qadarkeeyu isagoo xaragoonay uu hoolka soo galay si uu damaashaadka arooska u sii qurxiyo. adiga hadda muuqaalka daawanaya, haddii aan mar kale ku xasuusiyo wixii hoolka ka dhacay, maxaa kaaga baxay? miyay jiraan wax ka duwan waxyaabaha aan aniguba qiyaasay? sidoo kale haddii aad hayso aragti ka duwan, commentiga ayaad ku soo qori kartaa. aragtidaadana xor ayaad u tahay. haddii aad muuqaalkan daawatay ilaa iyo dhammaadka, inaad like saarto waxay faa'iido badan u tahay. inaad like saarto wax badan ayay naga caawin doontaa, muuqaalkana saaxiibo badan ayuu gaari doonaa. sidoo kale u sheergaray saaxiibadaada si ay noogu soo biiraan saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale. magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafiinho.